sideedaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed koonkan Ilaahay uu u jecel yahay nimankaas khawaarijta ee Ilaahay ka furtay ummadan iyo dalkan iyo dadkanba loo soo diray qof kasto horta la dagaashana adduunyada ugu jecelna anaga tan kala de anaga reer jamaacaan ahayo anaga xaq joognaa xisaabsana maanta sharafay ii taa dabcan inaan idin hor taaganahay maalin laweed waxaan rajeynaa ballanqaadkayga waa idin soo gaari hawshii hore u hayseen xaqiiqatan waliba adinka isxilqaanteen oo adinkoonan dawladdan lacag idinku siineen rasaasta jeebkiina ka soo gadanaysaan waxa cunaysaan gurigiina ka soo qaadanaysaan haddana inta hadda la sheegay oo 40 kilomitir iyo 50 kilomitir iyo 30 kilomitir ina cadawga maalin kasta kula dagaalayseen xaqiiqatan waxa waaye waxaan ku midaali karno ama aan barbar dhigi karno ma jiraan marka hadaan boqol jeer idin maad celina xataa abaalkiina maynan gudin laakiin markasta Ilaahay waxa idin weydiinaynaa ajir iyo xasanaad inuu Ilaahay ka siiyo intaas kadib waxaan rabaa maalin dhaweeyay beedhawo markaan joogay aan rabay inaan idin soo gaaro haddana waxaan ku qasbanaaday inaan xamar aado hadda shalay maalin kooris aan beedhawo soo galay waxaan dhahay meel kale aanu aadin horta waxaan tagaa bardaalan tagaa waxaan rabaa in ogaatiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadku ku faano oo uu dhaho ummadaha kale markuu u tago warnimada reerkaas iyo jamaacadaas tusaale ka dhigta dadka dhahanaatihiin kuwiina bardaala joogana shaqadana haysiin kuwa kale waxa jiro shabeellada hoose joogo oo ayaga laftirkoona aan ka liidano jamaacade oo qoryoolay joogo marka shaqada haysiinna gudoomiyaha iyo jananka waa sheegeen waa shaqo muqaddas ah nimankan cadawga waxa loo soo diray ummadan inay xididada u siibaan inay dhaqankeedana burburiyaan wixii lagu yaqaanay oo ahlu dariiqada aheedo diinta iyo wixina lagu soo barbaariyana ay salka ku jiraan beenay sheegayaan oo maalin kasta waxay leeyihiin waxaan u dagaalamaynaa diinta inaan faafino diinta islaamka meel ay ku dhigayso nin Ilaahay ka cabsanayo oo muslim ah in qoorta laga jaro meel ay ku sheegto ma jirto nin masaajid ku jiro muwahhid tawxiidka qaatay Ilaahay u tukanayo masaajidka asagoo fadhiyo meeshii salaada uu ku tukaday quraan akhrisanayo diin dhigays in masaajidka inta loo gal lagu dilana ma jirto waxay u socdaan oo ay mashruuca ku soo qaateen waa ummadan inaan xasilooni helin waa ogtiin horumarka iyo xasiloonida waa isku xiran yihiin Soomaaliya waxa Ilaahay siiyay Ilaahay ku maneystay ama xoolo ama dhul ama waxyaabaha kale adduunyada hadda lagu horumaro oo shidaalka hadda la qodayo uu ka mid yahay waxay u baahan yihiin in amni la helo oo xasilooni la helo waxay diidan yihiin marka Soomaaliya inay adduunyada intay yigsato ay adduunyada booskeeda ay ka soo gasho dadkii Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay kartida ee lagu yaqaanay horumarka ee lagu yaqaanay nabadda iyo cadaaladda lagu yaqaanay ay rabaan inay adduunyada magac xun ka gadaan ay dhahan Soomaalidu waa dad dadka qasho waa dad dadka dilo waa dad dadka qarxiye rabaan horta message-kaas inay naga bixiyaan waxa noo yaala waxay tahay marka inaan iska dhicin waxa waayay si kasto wax loogu sheegana sidoodaba horta mashruucaas ay ka soo qaateen gaalada iyo adduunyada kale oo diidan Soomaaliya horumarkeeda inaan dinlama ogiye daawo kala malahan nimankaas marka waa kaga mahad celinayna waxaan rabnaa haddii Ilaahay insha Allah waa ka xunnahay dabcan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar hore inta in uu joogo laakiin markasta waxaan dhahaynaa annaga nimankaas meesha jooga wakiil laga xoogga dalka Soomaaliyeed idinka wakiil ka ahay haddana sidaan ku ballanay waxaan rabnaa insha Allah in maxaa lahaa xuquuq ku heshaan shaqadii hayseen leedinku abaal mariyo waxaan rabnaa wixii hadda ka dambeeyana shaqadii inaan sii wadno ciidan kale oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan idin keenno aad garabsataan shaqadii hayseen meeshii markii hore hadda 50 kilomitir tagaysan hadda waxaa la rabaa 100 inaad ka dhigtiin haddii Ilaahay
haddaan idinkeena urur kale 100 waa ka dhigaysiin Soomaan maasha Allah marka aad iyo aad u mahadsantihiin maanta de farxad waxaan lahayn hadalka xataa si fiican uma karo aad aan u faraxsanahay inaan hor taaganahay aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah waa maanta inaan idin mahad celiyo shaqada haysiin idinku dhiirigeliyo